meel ingiriis la dhahaan tegey meel marfish la yiraahdo qaad lagu galaan galay 7 sano oo noloshaydu la degay xanuun badan baan ka soo maray walillahi alxamdu 2004 baa igu dambeysay wixii ka dambeeyana waxaan garowsaday oo aan isiri war wiilasha yarka ilka xaalada soo socda nabii qodxaala aad soo martay uga dig waxay wadaan maanta kelmadda aan wadana waa kelmaddaas dhowr su'aalood oo kooban baan rabaa inaan ka jawaabo dhowr arrimood oo koobanna aan iftiimiyo marka hore waxaan idin siinayaa warbixin xaaladda qaadka iyo maanta meeshay marayso waxaad la socotaa diyaaradihii qaadka in la joojiyey arrimo siyaasadeed iyo covid-19 iyo magacii raba loo bixiyo laakiin waxa muhiim ah dawladda Kenya waxay sameynaysaa wax allaala oo macquul ah oo awoodeeda in baalkaas dib loo furo si kala haddaan u dhigno nimankaasi waxay midiyaha u soo faysanayaan waa wiilkaas yarka hadda dhabta ku haysid oo masaajid keenaysid inuu noqdo customerkooda soo socdo dadaal badan baa jira laakiin iyaguna dadaal badan bay wataan waxayna wataan rag siyaasiyiin rag mas'uuliyiin ah oo iyaga la shaqeynaya doonaya in dib loo furo su'aasha isxigtaa waxay noqon kartaa war wakaas qaadkii asagoo dhaadheero qof leeg magaalada yaale diyaarad la kordhiyay joojiyay maxay soo kordhisay waxaan idin siinayaa nambaro yar yar oo aan aruuriyay magaalooyinka muqdisho jowhar baladweyne gaalkacyo garowe cadaado caabudwaaq qardho boosaaso baran baydhabo iyo laascaanood 12kaas magaalo xilligii diyaaraduhu qaadku imaan jireen oo ay furaayeen waxaa maalin walba imaan jirtay 3750 jawaan total aerobooradaas waa diyaaraduhu qaadku ay keeni jireen kaliya 6 bilood oo qaadka la joojiyay haddaad kalkuleetaradina la soo baxdaan halka jawaan Kenya waxay qaadan jirtay $450 6 bilood oo la joojiyay 3750 oo lagu dhuftay $450 $3,750 jawaan oo lagu dhuftay $450 oo lagu dhuftay 6 bilood ama 180 maalmood xisaabta netka ah oo magaalada ka bixi jirtay Soomaaliya oo dhanna ma ahana ogow Jubbaland oo dhan ma tirin gobollo badan oo aan tirin baa jirta xisaabta marka la isku dhufto waa 303 milyan 750 kun oo dollar 303 milyan 750 kun oo dollar baahiyahan u qabno iyo boogahan ku dhisan karno iyo isbitaalada iyo laamiyada iyo warshadaha idinkaan idin deynaya iyo qiyaastiin lacagta intaas leeg dad baa u dagaalamaya dad baan diidan in qaadka la joojiyo dad baa waxay leeyihiin war dadkayagii noo daaqi jiray maxaa loo daayay taas waxaa kaaga sii daran hadda waxay ka dhex tafan tahay Kenya iyo Ethiopia oo ay Kenya eedaynayso Ethiopia leedahay Ethiopia nimankan adaan loo hoodaadeeyay haddaad hareerigaaga ceshatid garow anaga customer noo hayda haddaad hareerigaaga naga geyn iyagoo baryotoban noo iman lahayd ee ka jooji hareeriga waxaad moodaa inay leeyihiin geela hayga dar waxaa xusid mudan Kenya ergey soo dirsatay dawladda federaalka u timid wasiiradii dawladda federaalka u timid waxay leeyihiin noo fasaxa aan caruurtiina layno dhalinyaradiina ilkaha ka daadino reerihiina dubinay waa sida aan anu qaadid u turjuntay iyagoo erayada saa u dhigmayaan laakiin waxaad ogaataan kelmadahaas kulama dhacaan inay ku dhahaan wadamada dariska oo ay waliba qaraabada yihiin ee Uganda Zambia Rwanda Burundi Uganda wadamadaas oo dhan qaadku waa ka mamnuuc adduunka intiisa kale iska daa fariin baan rabaa maanta inaad iga qaadaan intiinaan joogta fariintaas naqaan bay idinku tahay ninka qaadka cunow ogow lacagta adiga laga qaado hadda waa lacagta $10 adigu aad jidda ku iibsatid $1 oo kamid ah waxa lagu fidiyaa diinta masiixiga waxa lagu dhisaa kaniisado waxa lagu daabacaa Bible-ka haddii aadan hore u ogeyn maanta ogow gowsahaaga diinta masiixiga ku fidin adigu jeebkaaga ha kula dagaalan qowlka Ilaahay lacagta aad caruurtaada ka qadisay oo aad reerkaaga u diiday yaan kaniisada lagu dhisan kelmadaasna waxaan ku soo xigeenayaa oo ka soo xigeynaya oo ku salaynayaa afkiisa waxa ka yiri gudoomiyihii hore gobolka Meru haddana ah wasiirka ganacsiga waddanka Kenya asagoo Ingiriis ka codsanaya buu yiri noo daaya lacagtaan aan Soomaalida ka helno aan qaad ka helno
kaniisadaan ku dhisnaa oo bulshadaan dib ugu celinaa oo baybalka ku daabacnaa oo diintaan ku fidinaa si aad ku fahmi kartaan haddaan idinkugu sheegana maanta masjidka asxaaba ilaahay laguma keenay meel yar hadday ka dhacdo cidda u horrayso gurmad u dirsannahay waa amal iyo golis iyo warbax noogu dara masaajidku waxba u baahan yahay qaadku saasoo kale uu ka yahay waddamada qaadka beerta marka dhibaato walba soo food saarta waxaa la yidhi weliba gobolka meeru kaniisad cusub oo waxaa jirtay sanadkii hore la yidhaahdo oo la yidhaha goro church qolaa sii weydiiyo waxaa la yidhi garo waxaa loogu magac daray malaha waxaa laga yaabaa reer garow inay kaniisadaas dhiseen arrintaasna loo taagno waxaan idin leeyahay walaalayaalow dalkeennaa lagu dumiyaa oo qoysaskeenna lagu dumiyaa oo hadda xaaladdu meel fudud meel fiican bay maraysaa hadda yarsanina awoodda aad leedihiin qaadku Soomaalidu waxay dhahdaa intooda badan warbahalkaas siyaad barraa joojin waayay warbahalka waxba lagama qaran karo warriyo nin iska qeylqeylinaya tahay waxaan idin leeyahay fikirkaas waa in la bedelaa qaadku wuxuu noqday dab ama dhiiqo ama qashin aan arkayno oo qof walba saas leeyahay ka tallaabsanayo waxaan idin leeyahay yaana ka tallaabsane carruurtu iyo nooga daadane baaldi inta qaadano aan ka xaaqna meesha waxaana ku xaaqi karnaa afkeennaan ku reebi karnaa waa munkur awood ma lihin annagoo aan ku mamnuucno shacab baan nahay laakiin qoys nin walbo maanta halkan fadhiya nin walbo wadaada nin walbo mas-uula waxaa la rabaa inuu dhaho gabadhaan anagu mas-uulka ku ahay suldaanku u ahay sheekh u ahay nin qaad cuna siin maayo ma geeyo gabadhayada shirkadihii way qaateen go'aankaas waxaa la yidhi nin qaad cuna shaqo la siin maayo waa xoolo ma bedel intuu findhicilanayaa khaaladii lala baxaya lama aamini karo wakhtiga ma ilaalin karo idinku laftigiinnu marka mas-uuliyaddaas inaad qaadataan baa rabtaa ma aha nimanka hal la xumeeye ma lihi laakiin waxa ay wataan baa la takooraya ninku hadduu iska daayo gabadha waa la siinayaa shaqada waa la siinayaa amba nin cuni jiro iska daayaana maantana waad aragtaa nin balaa inaana marka ragga qaadka cunana waxaan leeyahay ragga qaadka cunana fariintaan iga gaarsiiya haddaad aqoon jirteen qaad baan cunahayaa waa iskaga madadaalanahayaa cidna waxbay odhan mayso ma jirto gabdhihii waxay leeyihiin ima geeya nin qaad cuna oo guri kulama hoydo oo guuleediyo uma dhalo shaqooyinku waxay leeyihiin nin qaad cuna shaqo siin mayno ummaddu waa ku soo wada jeesanaysaa idinkana maanta intaas aan isdhaafsannay waa idiin soo gabagabaynayaa qodhiin iyo xeradin guri walba iyo intaad awoodaan gaarsiiye wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu